Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan salaamayaa guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan beesha Ciise. Salaantaa kadib, halka waxaan ka soo jeedinayaa baaq aan u soo jeedinayo beesha Ciise oo aan ka soo jeedo. Baaqa aan soo jeedinayo kuma jiraan dadkaan u soo jeedinayo siyaasiyiinta beesha Ciise ku matala dowlad deegaanka Soomaalida ama kilalka shanaad. Waxaa kaloo iyakuna aan ku jirin hoggaaminta dhaqanka ee beesha Ciise oo ugu horeeyo Ogaas Mustafe. Waayo dadka baaqaan u jeedino hore ayaan uga quusanay, bal waxayba u muuqataa inay yihiin dhibaatadan ka taagan galbeedka gobolka City inay iyagu ka dambeeyeen ayay u muuqataa. Saas awgeed iyaku baaqana maanta soo jeedinayo kuma jiraan. Waxaan u soo jeedinayaa bulshada ama shacabka beesha Ciise intooda damiirka leh, ee dadnimada leh, ee dhiigga leh, ee dhalashada leh ayaan u soo jeedinayaa. Uma soo jeedinayo nin warba ka haynin waxa galbeed ka dhacayo oo ku faano anu galiilaba ma gaadhine dhulka maxaan ka garanayaa. Belbelaba ma arag ee waxaan ku noolahay kaartesiis iyo kartoon oo belbelaba weli ma tegin ee dhulka maxaan ka garanayaa. Ka sida u fankiro uma soo jeedinayo. Waxa uu ku socdaa baaqaygu dadka gaar ahaan wuxuu ku socdaa dadka ay dhibaatada ku dhacayso. Guud ahaanna wuxuu ku socdaa beesha Ciise wixii damiir leh. Baaqan soo jeedinaya waxa weeyaan, marka koowaad waxaad ogaataan in ay jirin cid nii maqan oo dowlad ah oo hoggaamin dhaqameed ah oo hay-ada ah. Saas awgeed cabashadiinuna meel kastaba way gaadhay, af kastaba waad ku hadasheen, si kastana waad u hadasheen. Saas awgeed maxaa tala ah? Aniga aragtideeda gaaban markaan cabiray waxay ila tahay dadka in iyagu isku tashadaan oo dhibaatada maanta ay ku jiraan siday uga bixi lahaayeen ay ka tashadaan. Horey bay ugu soo dhacday dhibaatooyin tani la mid ah amba u dhow, waa ayna ka soo baxeen. Waxay ka soo baxeen ay ka nool yihiin dhibaatadii balac ku dhacday. Waxa ay ka nool yihiin ay ka soo kabteen butada caada dagaalkii la yidhi amba duulaankii la yidhi. Waxay ka soo kabteen ay ka nool yihiin butadii bari weyn amba mawdka loo bixiyey, iyo intaas oo dagaal oo lagu soo qaaday oo xitaa mar ay gaadheen in la tirtiro adduunkaba laga tirtiro, laakiin haddana maanta ka nool yihiin. Ilaa wax ilaahay dilo unbaa dhinte amba wax ilaahay dabargooyo unbaa dabargo abaarahana waxa ay ka nool yihiin dhagax madow, tirxiiley, goroyaladeg iyo qoodhuha hadhiyo kuwo kaloo kasii darnaa ayaaba ay ka nool yihiin. Sidaas awgeed wax nii maqan ma jiro
intaa oo dhibaato oon soo sheegana ma ay jirin cid aad u cabataan oo aad tidhaahdeen wax nagala qabta. qofku hadduu barto iisoo gurmada iisoo gurmo iyo iga dhow hadduu barto waxba iskama celiyo. sidoo kale haddii loo muujiyo inaa wax lala qabanayo laakiin qawda maqashii waxna ha la qaban, qawda maqashii waxna ha u qaban ee xaaladiisu tahay dee waxba ma qasbado, meel lama gaadho. laakiin hadduu cidna ku talagelayn, cid wax u hoosaasinaysan ay jirin oo caqligiisa iyo cududiisa uu ku talagalo ilaahay ka sokow, dee si unbuu maad aragtay dhibaatada uu ku jiro uga baxayaa. markaa bulshada ku dhaqan galbeedka gobolka City, Dhuuyar iyo Daymeed, dhibaatadan ay ku jiraan si unbay uga bixi lahaayeen. ilaa waqtigana lama soo gaadheen oo kolba kolkii ka dambeeya kuma sii adkaateen. laakiin waxa ku jirto meesha hoosaasin loo hoosaasinaya cadowga ayaa meesha ku jirto. kulley waa laga hadlay sida loogu hoosaasinayo, kuma sii dheeraanayo. waxaa ka hadlay halgama aadan allaale iyo in badan oo beesha ka mid ah, oo Cumar Furre ka mid yahay, oo Sheekh Cabdillaahi Ibraahim ka mid yahay, oo halkan aan kusoo koobi karin ayaa ka hadashay. waxgaradkii oo uu ka mid yahay Sheekh Samood Barre, waxgaradkii beesha Ciise ee galbeedka gobolka City iyo meelaha kaleba waa ay ka hadleen dhibaatada halkaa ka jirto iyo sida ummadda loogu hoosaasinaya cadowga. saas awgeed waxaa loo baahan yahay inaan laysku tashado, tani sidii looga bixi lahaana loo tafaxayto, ayadoo cidba aan wax laga sugayn, ilaahay aanan ahayn. xaaladeenna aan dhinac u ridno. maalinta aan dhinac u ridnana waxaan ka tallaabo qaadi doonaa oo aan ganaax ka qaadi doonaa. ma odhanaya halala dagaalamo halalaayo, waayo dad muslimiin oo walaalaheena, laakiin waxay istaahili doonaan inaa ganaax laga qaado iyo baad kuwa maanta dhibaatada nagu daawanayo ee nala dhashay meeshay doonaanba ha joogaan, oo ay kow ka yihiin kuwii horta aan carabka kusoo dhiftay inuuna baaqaygan ku socon. kuwaabaan ka tallaabo qaadi doonaa oo kharashka halkaa nagaga baxa, dadaalka halkaa nagaga baxo, miiska dhiga aan odhan doonaan u garaaci doonaa. kolka aan ka soo baxno dhibaatadaas aan dhinac iskaga dhigno, waana ku guuleysan doonaa insha allahu tacaalayo. cafartu waa dad muslimiin oo ilaa weligeed aan jaar ahaan jirnay, dagaalbahana dhex maree waan la heshiin karnaa. beryihii horeba waa lala heshiin jiray, ayada oo ay dowlad jirin ayay dadka reemiyiga heshiin jireen, ay ku heshiin jireen. mararka qaarkood xitaa waxaa lagu heshiinaya intaa abaarta nabad la ahaado, kolkuu cirku da-ana nabadaasi halkaa ay ku ekaato oo colaadii ay soo laabanto. raganimo ahayd. markaa canfar ku biirinayaa, la heshiinayaa, iska dhownayaa, si un baan uga soo bixi doonaa hawsheeda. kolkaan ka soo baxnana wax aan ka tallaabo qaadi doonaa cid kastoo dhibaatada nagu daawanaysay oo nala dhalato nala dhiiga. waayo xeerka beesha Ciise waxaa ka mid ah iga dhow iyo idib iyo idhe. intaa haddaad mid aad ka weyday maaragtay ninka Ciise ee kula dhashay, waa in lagu ganaaxo geedka lagu keeno oo magtaadii laga qaado. waan ka qaadi doonaa kuwa magteenna ee horta annaku intayna nool dee waaban dhammaanay haddaan nahay dadkii jiidda hore inta nool ha isku tashadaan. wixii kale ee damiir leh ee guban joogo, ee Jabuuti joogo, ee gobolka City intiisa kala joogo, ee Dirdhaba joogo, ee Jigjiga joogana, ee Hargeysa joogo, ee Boorama joogo, ee Muqdisho joogana, iyakuna ha nagu garabsiyaan. wax kale hadday noo qaban kari waayaan afka ha nagu taageeraan, ha noo hadlaan keliya bes.
intaas ayaan kusoo afjarayaa baaqaygan yar kooban oo cajiladan audioga maaragtay ambo maqdac sawtiga aan kusoo qabtay hala sii gaadhsiiyo meel kasta oo beeshu ay joogto. waxaan rajeynayaa inay gaadho gurubyada qolalka gaarka ah dhammaan inaad gaadhsiisiin ayaan rajeynayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.